السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساحب الكسوة دوادة كورتين عصب صومالي على باب أونلاين كورس فرصة وين بعديها إن شاء الله. waxaan rabaa muuqaalkan aad ku sharaxo waxyaalaha aad ku baran doontaan koorsigan sidoo kale intaan idin sharax waxyaalaha aad ku baran doontaan waxaan rabaa laba kelmo inaan insha Allah aan rabo saawti masaaxab bal 5 sano u dambeysay waxa ku soo dhex jira aniga ganacsiyada e-commerce iyo online businesska waxaan si gaar ah isha uga hayay suuqan weyn Alibaba oo waxa weeye reer galbeedka ee xoog hadda u isticmaalaan tusaale hadii aad gashay Amazon productyada dhan Amazon loogada kulligood resources waxay yaalaan ama source ah waa suuq Alibaba tusaale kale hal product Alibaba ku yaalo $2 Amazon hadii aad geliso waxa ku helaysaa $15 $20 lacag ku dhaw marka reer galbeedka hadda aad bay uga faa'iideen fursadda marka saaxiib waxa la inaan la shargaliyo dhalinyarada hadda Afrika iyo Soomaaliya ku nool siyaalaha ay uga faa'iideen mid kale suuqa China hadda wuxuu u soo jabay wadankeena Soomaaliya oo dad badan baa hadda alaaba ka keensado marka waa fursad la fahmi doona sanadaha soo socda qofka xirfadan bartaana wuxuu awood u yeelan doonaa asoo wadanka jooga iyo meel kasta adduunka mid in uu suuqa China alaab ka soo gato Alibaba oo gurigiisa keensado ka sii macaasho asoo qaab online u sameeyay meel u safrin lacag badan ka bixi okay intaan u gudbin koorsada waxyaalaha ku baran doonta laba shay kaliya rabaa inaan idin wada yaa koorsan ka faa'iideysan karo koorsan waxa ka faa'iideysan karo dadka raba in Alibaba ka soo adeegtaan ka sii macaashaan faa'iido badan ka sameeyaan labo waxa koorsan ka faa'iideysan karo dad waxa weeye service ahaan u bixinayo inay dadka u soo adeegaan alaab ma soo gadanaysid laakiin aqoontii skillkii baa leedahay oo waxa baranaysaa qaabka Alibaba ugu soo adeegan leed hadhowna dadka ugu adeegaysaa tusaale kale TikTok baa furanaysaa waxa leedahay waxa weeye suuq Alibaba ka soo adeegi kara ana xirfadda leh sababta midaan labaad aan ku keenay waxa weeye dad baa coach garaya mentor baa ahay Europe iyo America degan Soomaaliya ganacsato soo marka Alibaba baan kala soo adeegay wadankii baa dukaan uga furay dad marka kalaniska waxay raadinayaan dad u soo adeego oo xirfaddan yaqaan Alibaba marka waxa raadinaa dad wax Alibaba yaqaano dad yar baa helnaa mustalina dad aqoonti guud ma helno marka labada qof oo ka faa'iideysan kara ganacsada yar yar ku waaweyn oo rabo jumlad ahaan in wadanka alaabkeena ka sii macaashaan ama ganacsada yarka ay ka sii gadaan iyo qof skillka yaqaano dadka hadhowna uga faa'iideynayo okay maxaa koorsan ku baran doontaa koorsan saaxiib waxa ku baran doontaa qaabka u shaqeeyo suuqa Alibaba baa waxaan mataqaanaa website-kiisa baa wax badan navigate gareynaa qaabka u shaqeeyay information guud baa idinka siinaya Alibaba wuxuu yahay dadka maadaama ay Chinese yihiin website-ka iyo qaabka u shaqeeyo baad ogaa doontaa business-ka e-commerce noocu yahay iyo xaaladaha la iska rabo waxa koorsan saaxiib sidoo kale ku baran doontaa sida badeecadaha si saxan loo baaro badeecadaha ugu fiican and products ugu fiican oo weliba products-ga qaabka loo baaro maadaama suuqan ay ku jiraan millions of suppliers kala duwan ba ku jiro marka adiga keebaad wax ka dalbanaysaa maxay ku go'deen productiga qaabka product ugu fiican loo doorto terms kala duwan iyadoo laga fiirinayo pricing-ka quality-ga iyo waxa weeye quantity-ga sidoo kale saaxiib waxa koorsan ku baran doontaan supplier-rada saxda sida loo aqoonsado dabcan supplier-rada saddexba loo qabiyaa mid gold supplier mid verified supplier iyo mid saddexaad oo la dhaho trade assurance maxaa supplier ku dooranaysaa maxaa la iska ilaaliyaa red flags-ka kees xasan kees waxa laga dalbadaa si deeply insha Allah baad ugu baran doontaa supplier-ka saxda oo alaabtaada meesha aad ku keenin doono sidoo kale saaxiib waxaan koorsan ku baran doontaa sida heshiisyo dhaqangala loo galo compromise qaabka loo sameeyo deal sax ah oo dhaqangala qaabka u gali lahayd sidoo kale saaxiib waad ku baran doontaan maadaama dadka alla macaamilis ay yihiin dad Chinese ah communication-ka waxa weeye adag tahay luqadooda xitaa waa ku baran doontaa language suuqan waa ku baran doontaa vocabulary badan baa ka diyaariya oo slides iyo presentation adigana aad la dii kartid oo mataqaanaa dib noqon MEQ tusaale kale OEM FOP dhammaan waxa weeye suuqa waxa uga baahan tahay oo vocabulary luqadooda waxa weeye ku baran doontaa insha Allah sidoo kale saaxiib waxa ku baran doontaa sida loo doorto nooca rarida ama shipping terms sida u dooranaysaa hadii markab alaabta lagu saaro sea freight baan ana sida u dooranaysaa hadii lagu soo saaro waxa weeye alaabta diyaarad oo air freight qaabka ku dooranaysaa kayf fiican labadooda comparison baan ku sameeynaa sea freight-ka waxa way jaban yahay waxa way air freight-kana waa qaali laakiin waqti kana food kana waqti hada qiimahooda destination port everything oo baahanta wadankii xitaa waxa koorsan ku baran doontaa Soomaali wadanka jirta China oo alaabtaada ku keenayo oo shirkado kule qaabka u heli lahayd adiga iyo inta naqaan qaabka u baranayd sidoo kale saaxiib waxa ku baran doontaa sida khiyaanada la iska ilaaliyo red flags badan baa ku baran doontaa 10 ilaa 10 shuruud baa jirta supplier-ka laga fiiriyo isbeddelka saxda ah oo mataqaana si professional aad u baradood insha Allah sidoo kale saaxiib waxa ku baran doontaa sida loola gortamo suppliers-ka negotiation ka qaabkaad u sameeyneed baa ku baran waliba luqadooda Chinese-ka saxda oo professional baa ku baran doona oo English-ka dabcan adduunka language-ka si wax la terminology English-ka Chinese-ka
terminology fiican buu leeyahay oo ku bari doontid qaabkaad u dalban waliba markaa terms baa nii diyaariyay iyo templates diyaarsan su'aalo aad ku weydiin kadib taasoo kuu fududeynaysa communication qofka Chinese-ka xataa holiday-yada bara doontaa saa ogtaan si xabal Chinese-ka iyo waxa weeye iyo mataqaana reer galbeedku isku iidan ma aha Chinese-ka sanadkooda gaar weeye magacyo xayawaan u bixiyaan hadoo kale waxa ku leeyahay waa sanadka mataqaana dragonka waa sanadka lo'da waa sanadka eega waxaas leeyahay marka qaabka holiday-gooda ethics-kooda culture-kooda custom-kooda oo baranayna chapter gooni ka diyaar aniga Malaysia ku soo noolaa Malaysia qoomiyadda labaad ee ugu badan waa Chinese soo marka si fiican baa u aqaanaa haddana wax badan baa ka soo gatay oo waxa weeye mataqaana tarasho badan baan dhex maray marka information fiican oo kalsooni ah si professional dadka isku habdootaan baa ku baran doontaan marka guud ahaan saaxiibayaal koorsadan waxa ka faa'iideysan karo qof kasta oo rabo inuu suuqan ka faa'iido dabcan fursad weyn baa ka banaan aniga fursad weyn baa hadda ka arkaa suuqa Alibaba oo hadda Soomaaliya Afrika ku soo jabayo dadka Afrika jooga xataa ka dalban kara waayo alaabo raqiis oo sentiin la gado $1 la gado wadankii waxa la siiyaa $25 qiimo badan baa ka sameynaysa marka waxa ku baran doontaa qaabka lacag uga sameeyna Alibaba koorsadan qaabka adiga business uga sameyn lahayd baa ku baran doontaa marka laga soo adeegaas saas xabeel ogtihiin ba wadanka dadka alaabta keeno dadka ka taajir ganacsiga ka taajir waa kuwa keena jumlada dadna waa retailer wax mid tafaariiqaya wax ka raadaan daily lives ama daily mataqaana cunto abi ka raadiyaan dadna waa jumlada dadka wadanka ganacsiga lacagta sameeya intiina fahamsan sida badan ku sameeya waa dadka alaabta u keena jumla ahaan week kadibna waxa way alaabtii laga dhamaysto haddana diyaaradiisu ku laabto waxa way bisha kalena container kala keeno taas waa ku bara doontaa oo si mataqaana alaab raqiis ah ugu soo adeegi leh dabcan container marka aan ku dhahayo qasab ma inaad container ka soo rartay $1 $5 $2 $3 whatever adiga budgetkaaga baad ku bilaabi ka dhaa waan ka sii macaash kala gurigaagana ka dhax furanaysaa bay businesskaaga xaafadda ku dhax iibinaysaa business ideas baxtaan ku dhax bixinaya meeshan oo fursadaha ganacsiga wadanka ka banaan productyada tolay badan baa ka bixinaya sidoo kale saaxiibayaal zoom sessions baa leeyahay qofkii koorsan qaata u baahan in la taliyo kale dabcan waa soo joon kareen ka dhan waxa weeye zoom ka koorsan kadibna website design qofkii rabo kale waa la soo xiriiri karaa waan u diyaarin karaa ama koorsan e-commerce buu qaadanaya qofka soo u barto website design